وقل رب زدني علما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله تعالى وحن جعلها إن كلمتكم من كإلهه أرن كم إذا دينتنا ومالمهن وهذا الكيس كبطي بلشدة الحديدة كاسيو ختان النساء dumarka guditaanka la gudayo iyo halka ay diintu ka taagan tahay. xaqiiqatan waxaan oran karaa ugu horreyn walaalayaal waxaynu nahay dad muslim ah, waxaynu nahay ummad la arko tii ugu qiimaha badnayd ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo saaray. sharafta iyo wanaagana waxaynu ku helaynaa oo Ilaahay nagu siiyay ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah. inaynu nahay kuwa wanaaga isfaraya, xumaha iska reebaya, ilaahayna subxaanahu wa ta'aala iimaan ula imanaya. marka ay sidaa tahay, waxa mudan wixii aynu isu soo jeedino ee khayr ah inaynu kala qaadano, wixii aynu iska diidno ee iska reebno ee diinteennu inaga reebayso qofna wuxuu hawadiisa kala yimi xaqu ma laha cid kale inuu fare inuu waxa weeye aynu ka reebtoono oo aynaan ku sifoobin kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu tilmaamay wa idha qila lahu ittaqillah akhadatu al-'izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam. Ilaahay uu tilmaamay marka la yahdo war alle ka baq, isla weynida ay iyo kibirka haya ayaa wuxuu ku xambaarayaa marka arinta iyada inuu ka santaago arintaasi oo dambi waxa weeyaan sababkeedu sidaa u yeelayo iyo isla weyni. Ilaahay wuxuu yiri qofka noocaasi Allah inagama yeele fa hasbuhu jahannam, waxa kaafiyaysa oo ku filan oo qofka xaqu qancin maaye qancin doonta naarta jahannama. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynaga ilaaliye. marka ay sidaa tahay, mawduuca isaga ee khitaanka dumarka aynu oran karno al-khitaan waa bayna al-ghuluwi wal-jafaa buu dhex yaallaa, qolo ku talax tagtay iyo qolo waxa weeyaan ka gaabisay oo xaqii uu lahaa diiday oo marin weyday, iyo qolo intay siyaadeen fuliya ku talax tagay oo meel aanu lahayn geeyay. marka xaqiiqatan arinta dad badan baa damcay inay ka hadlaan, qaarkood bixaqin bay kaga hadleen, waxaanay sheegeen inuu yahay shay sharci ah, diinteenana ka mid ah, in lagu xadgudbaana ay gaf tahay. kuwaasi xaq bay u leeyihiin, ilaahayna subxaanahu wa ta'aala khayr iyo wanaag kaga abaaliyo. culimo iyo madax dhaqameed iyo waxgarad kaleba cidii ka hadashay in la garab siiyo oo xaqa lagu ayido oo lagu garab istaago xaq bay u leeyihiin. qolo kale sifo aan sharci ahayn oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala shayga diintiisa ka mid ah ay ku dadafaynayaan ayay uga hadleen. iyagana waxaynu isu dul taagi doonaa inagoo aan ku xadgudbaynin inaynu xaqa ugu bayaamino sida uu yahay, ilaahayna aynu weydiisanayno inuu ku anfaco oo ay kaga laabtaan baadilka oo aanay ku sii taagnaan. marka aynu tilmaamayno qaybina inay ku xadgudubtay khitaanka qaybina ama gudniinka qaybina ay ka soo gaboodfashay, kuwa ku xadgudbay waa qolada samaynaysa waxa loo yaqaano marka al-khitaan al-fir'aawni, khitaanka fir'aawniga مثلا xubinkii dumarka intii la yiri ka jara aan ku gaabsanin ee intay ilaa gunta taabteen
xubinkii la rabay inay wax ka jaraan ee badriga xubinkan la yahdo masalan intay gunta ku ursadeen weliba xubin taranka intiisii kalena ku xadgudbay ama ha qodbeen ama jarjaris kale ha u geysteen markaa ku sameeyey tacadi badan kuwaasoo aynu leenahay ugu horeyn naftooda ayay dulmiyeen oo ku xadgudbeen mar labaadka cidda ay tacadigan kula kaceen ayay ku xadgudbeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariistiisa ku galladaysto mooyaane ciqaab adagna waa u bandhigan yihin maadaama oo xaq bani aadam ay si qaab daran ugu xadgudbeen diinta islaamkana way ku xadgudbeen oo waxaan ilaahay diintiisa ahayn oo aan sharciga meel ku lahayn ayay markaa ummaddii ugu sawireen sidii wax diinta ka mid ah oo ay markaas sameeyeen inay foolxumada noocaasiya ay ku kacaan iyagoo diinta u nisbaynaya marka kuwa noocaasiyahi waa kuwa xadgudbay waxaan xaqiiqatan kuwaa ka dembi yarayn kuwa shay diinta ka mid ah oo culimmada muslimiintu dhammaantood ku ijmaaceen oo haddii la yahdo axad igidi taageera oo masaladaa waxa aad tilmaamaysaan idinku raaca culimmada muslimiinta kala soo baxa ee salafu haadihi lumma aan hal qof ka helayn inay waxa weeye iyaguna ummaddii iyagoo kuwa u muqaabil ah ay kula dadaalaan inay shaygaa diinta ka mida meeshaba ka saaraan oo waxa weeye ay la dagaalamaan oo ay jariimo iyo dembi xisaabiyaan iyaduna waa arrin aad iyo aad falxumadeeda u leh marka aynu sidaa leenahay ma ra'yigeenna iyo aqoonteenna gaaban ayaynu ka soo qaadanno intan ka nidhi mise waa shay diinta ku sugan waxaynu tilmaamaynaa waa arrin diinta ku sugan oo aan sinaba looga weecan karin waa marka koobaadee walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuul allahi muxamed sala allahu calayh wasalam waxa uu soo diray iyada oo ummaddu ay mugdi ku sugan tahay ummaddaa mugdiga ku sugnayd dhaqankii iyo curfigii ay ku dhaqmaysay saddex arrimood midunbuu nebigu la qaabilay sala allahu calayh wasalam isagoo tilmaamay innamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa layla soo diray akhlaaqda teeda wanaagsan inaan kamilo oo dhammaystiro waayo nebigu sala allahu calayh wasalam ambiyadii hore oo uu ku metelay dhis isaguna xabaddii lebanka ugu dambaysay ee buuxinaysay halkii gurigaasi ka bannaanaa uu yahay waxa weeye ummadda iyada ahee uu u yimi akhlaaqiyaadkii wanaagsanaa ee ambiyadii hore waxa weeye markaa diimahoodii ka baaqi ahaa sideeduu nebigu u sugay sala allahu calayh wasalam dhaqamo badan oo ay lahaayeen islaamku waa xoojiyey ee macnaheedu ma aha wax kastoo qoladaasi ku sugnayd in gunta laga maray dhaqamadii xumaa ee ay lahaayeen oo ay ka mid ahayd dumarkii markaa hablihii ay xabaal nololeynayeen dhaxalka ay u diidayeen waxa weeye siyaabo badan ay ugu xadgudbayeen arrinta noocaasiya waxa weeye waxa uu ku sameeyey nebigu sala allahu calayh wasalam inuu si xad uga nahiyey ugana diiday ficilkaa foosha xun lena meesha laga saaray waxaa jira waxyaabo dhexdooda markaa dhaqan iyo curfi jira ahaa balse islaamku aanu si cad masalan u abbaarin ta noocaasi ah ee aan markaa nahyi loogu diidayo iyo amar lagu adkaynayo la farayo sidaa yeela la leeyahay waxay ku baaqi tahay baraa'atul asliyadii iyaduna markaa ma aha wax sharcigu diiday maadaama aan wax nahyi ay ku iman oo nebigu uu ku diidaya sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay sida saxiixulmuslimka ku sugan xadiiska cabdillaahi ibnu camar ibnu caas nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay innahu lam yakun nabiyun min qabli
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. waxau tilmaamayay nabigu sallallahu alayhi wasallam nabi ma jiro aniga hortay ilama waajib waxa ku ahaa inuu ummadiisa u cadeeyo xaq wixii uu og yahay ugana digo shar wixii uu ogsoon yahay. waxaa nabigu ogaan waayay cid kale ogaan karta ma jirto. marka nabigu sallallahu alayhi wasallam shar dhamaantii waa inuu digay, wanaag dhamaantiina waa uu ina faray sallallahu alayhi wasallam wax allaaliya wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu soo dhiibay. jamacii ugu weynaa ee saxaabada nabigu isugu yimaadeen sallallahu alayhi wasallam xajkii xajatul wadaa, nabigu markuu yiri war ma idin soo gaarsiiyay xaqii oo siday ahayd ma idin soo gaarsiiyay, waxa ay yiraahdeen nacam wadna soo gaarsiisay. markuu nabigu tilmaamay marka ma idin soo gaarsiiyay ala hal balagtu, waxay tilmaameen qaaluu bala ha wadna soo gaarsiisay. nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo farta kor u fiiqayo iyagana ku soo qaloocinaya wuxuu yiri allahumma fashhad, allah yawm markhaatika ahaw. ilaahayna waa u sugay subhanahu wa ta'ala nabigu wax allaaliya wixii uu xaq u soo dhiibay ee uu ilaahay rasuulkiisa ku yiri ya ayuha rasuul يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. رسول الله تدك وحي مركا لغو سو دجيه غارسي. نبي صلى الله عليه وسلم وين سو غارسي هداد سدا ييلي ويدو الله وحو تلمامي رسالتي إن آلت غدن مركا waa ina soo gaarsiiyay saxaabadiisina waa uga marxaati kaceen allana subhanahu wa ta'ala waa uga marxaati ku arinta yada oo sugay inaguna waa uga marxaati kacayna. marka ay sidaa tahay waxa mudan inaynu fahanno arintan khitaanka dumarku mala khitaanka ragga hadda hadalka ma taagna inkastay isku hal wado marayaan sharcan. khilaafka ku jira xukunka uu sii qaadanayo marka lagu ijmaaco inuu jirana waxa weeyaan labadaba khilaaf isku mid ah uu ku jiro oo marka la leeyahay waa waajib iyo waa sunne waxa weeyaan uu khilaafku marka labada mas'alaba ku jiro ragga iyo dumarkaba misna markaynu dumarka u soo baydhno maadaama hadda raggii khilaafka joogin nabigu waxa uu yimi sallallahu alayhi wasallam ummadaha kale ay ku tilmaamayeen sidii xadiiskii hiraqla ee saxiixa waxa weeye malikul khitaan baa lagu tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam boqorkii guditaanka. marka ummad bay ahayd carabtu guditaanka ku caana rag iyo dumarba la gudo, iyaga iyo yahuuduba taasi bay ku caanahaayeen. sidaas si leega nasaarada qaarkoodna waa lahaayeen. marka waa marka koobaade ummadii guditaanka ayay caan ku ahaayeen boqorkii marka guditaanku ku magacaabay. waa mid kale marka ay wada hadlayaan hadaladooda waxay muujinayeen dumarka in la gudi jiray sidii qisadii Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu maalintii Uhud ninkii mushriga ahaa markay wada hadlayeen waxa uu marka ku dhaliilay hooyadii mesela muqatti'at al-budur inay ahayd mid marka dumarka inta laga jaro ka jarjarto gudda qaabkaasi buu marka ku tilmaamay oo uu ku dhaliilay ninka isaga marka waxaad arkaysaa inay ahayd arrin jirtay oo dhici jirtay. oo mid kale luqada carbeed magac u gaara dumarku khitaankoodu ayuu leeyahay khifaad la yiraahdo ka noocaasiyana kutubu luqa iyo meel kastaba waxaad ku arkaysaa iyo shiciradoodii si kastay ahaydba inay ahayd arrin dhexdooda mashhuur ku ah oo gudniinka dumarku magac gaara u lahaa. cid kala qaaday oo tiri ragay gaar u gudi jireen dumarku guditaan ma lahayna haba yaraatee ma jirto. marka ugu horeyn waxaan u tilmaamayaa shakhsiga arrintaasi mugdiga ka gashay sharcinimadkeedu marka ugu horeysa dhaqankii iyo curfigii jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex arrin uu ku qaabilayay inuu tilmaanay.
miduu xoojiyey oo sugay miduu diiday iyo midka saddexaad oo noqonaya kaa uu ka aamuso xukunka sharciga markaa shayga bannaan qaadanaya kani markaa wuxuu ka mid yahay kuwii uu ayiday nebigu sala allahu calayh wasalam waxaana uu ku ayiday adilo badan oo tilmaamaya sunanulfidra iyo waxa laga soo gaadhay masalan sunantii ambiyada ee toosnayd ee ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu ku abuuray ee qumanayd sunanteedii waxaa ka mid ahaa khitaanka adilada saxiixa iyo keyrkoodba ku timi khitaanka meel uu ku tilmaamay waa ka ragga haba yaraatee ma jirto salafu haadihi alumma cid ka fahantay oo tidhi waxa weeye raggoo quraa loo jeedaa dumarku kuma jiraanna la axad lama soo helayo kuwo waxa weeye gaar ugu yimi khitaanka dumarkana waa jiraan oo ahlulcilmiga qayb ka mida xoojiyeen intaba ka kaalay dhammaan ahlulcilmigu waxay ijmaac ku soo rareen dumarka guditaankoodu inuu mashruuc yahay hal axad oo waxa weeyaan inkirayna ma jiro cidda haysa iyadaa soo rari doonta mana soo helayso a'immada sidaa tidhi waxaa ka mid ah masalan imaamu shawkani kitaabkiisa sayluljaraarka waxa uu tilmaamay markuu khitaanka ka warramayay kaana haabitan fi ljaahiliya hubuutan laa yunkiruhu axad faqararahu الsharcu faqararahu اlislaam cafwan faqararahu اlislaam waxa uu yidhi wuxuu ahaa jaahiliyadii shay sugan khitaanku shaygaa suganee uu ahaa cid odhan karaysa ma jirin oo qabla alislaam wax jiray ma ahayn ma jirto buu yidhi ma dhici karto islaamkuna waa sii taqriiriyo waa sii sugay markaa caadadaa carab oo dhani samaynaysay iyo yahuuddii nebigu madiine ugu tegay qofka inkirayaa laba mid buu u dhib qabaa laba god buu mid un gelayaa inuu yidhaahdo waxa weeyaa nebigu waa diiday markuu isagu diidayo bal meeshuu ku diidayna uu keeno oo la yidhahdo meesha nebi maxamed ku diiday sala allahu alayh wasalam soo caddee ilaa curfigaa jiray bal meesha uu ku diiday ee guri islaam iyo guri gaalba yaalay ee dhaqan caama ahaa waxa weeyaan halkuu ku diiday keen iyo inuu yidhaahdo waxa weeye nebigu sala allahu calayh wasalam waxa weeye wax markaa uu ka soo gaadhsiiyey ummadda oo uu ka yidhi ma jirto iyadoo hadduu yidhaahdo waxba kamuu odhan sideedaba sharci ku noqonaysa bisna waxaynu leenahay arrinta noocaasi ahi waa kadib cad wey waana xadgudub nebiga lagu xadgudbaya sala allahu calayh wasalam mana suuragalaha arrinta noocaas ah in nebigu sala allahu calayh wasalam ummadda bayaan shaafiya ka siin waayo oo la yidhaahdo waxba kamuu odhan marka nebigu miyaanu xaqa ka caddaynin arrinta noocaasi ah miyuu ka aamusay arrin saxa maaha qodobkaasi inta caalime ijmaaca ku soo naqliyey na waa fara badan yihiin ibnu cabdilbar baa ka mida oo istidkaarka ku caddeeyey iyo tamhiidka labadaba shaykhulislaam ibnu taymiya ka mid ah ibnu xasmi aldaahiri baa ka mid ah waxa weeye ibnu rajab alxambali baa ka mid ah ibnu hubayr alxambali baa ka mid ah macnaa intaas oo caalim ayaa fii kutubihim yidhi dhammaan culimmadu waa ku ijmaaceen bal caalimka la yidhaahdo maalan shawkani kitaabkiisa sayluljaraarka marka uu arrintan ka hadlayay waxa uu tilmaamay in waxa weeye aan la helaynin xitaa axad maxaa la yidhaahdaa markaa yidhi waxa weeye ma bannaana ama masalan waxa weeye waa laga tegi karaa wuxuu leeyahay ma jirto arrinta noocaasi ah waa uu diidayaa waana uu tilmaamaya
marka uu tilmaamay ijmaaca culimadu ku ijmaacday waxa uu leeyahay ma dhici karto in marka ay tilmaameen cid ka mid ah culimada muslimiinta marka waxa uu tilmaamay oo mesela hadalkiisii uu ahaa inuu yiri مثلا ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار. كتاب كيسا سيل الجرار كا شوسك الصدحات صفحة دا لابا بقولي يلا بيا كنت وحاوت المامية سقنانشيها قورك او سقناضي في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار ويكعدانشية بدنطاي marka cadceed duhur joogto hargali joogto way ka marka cadaanshiya badanta فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين تركه أو ترخص في تركه أو تعلل بما يحصل من مزيد ألم لا سيما للصبيان الذين لم يجري عليهم قلموا التكليف ولا كانوا في عداد من يخاطب بالأمور الشرعية. وحوليه هي مسلمين تمي مقل إلى أنت إسلامك كيم إلى إيا وقتك حالي لا تشوغو إن قف مسلمة هي أرنتا إيدا كتغي أو ختانك كتغي أما أو رخصيستي كتغيستيس أما أو كعليي waxa مثلا كسو أو كسببيي مثلا كتغيتانكيسيا waxa kasoo xasilaya xanuun iyo waxyaabahaasiya siiba xaruurta aan mukallafka ahayn qalankii takliifku aanu ku soconin ee aan kuwa umuuraha sharciga lagula hadlayaba aan lagu tirinaynin xitaa kulay ku tahay arrinkaasi arrin la yaqaano ma ahayn buuleeyo cidina ka batay marka arrinta ahlul cilmigu meesha adag ka istaageen sidee maanta si fudud loogu oran karayaa fal dambiyeed ha laga dhigo cidda ku kacda cid waxa weeye xadgudubtay hal la xisaabiyo see loo oran karayaa waa arrin runtii adeegeeda leh haddii aan waqtigu inagu ciriiri ahayn oo hadalka inaynu koobno aynaan doonayna si weyn baynu arrintaa wax badan uga soo rari lahayn oo u soo naqlin lahayn markaynu intaa ka gudubno dadkan diidaya iyada oo runtii intooda badani ay ku ta'athureen ama ku raadoobeen aragtida guracan ee reer galbeedka ee tilmaamaysa taxriirul mar'a gabadha la xoreynaya xoreynta gabadha tilmaamaysa xoreynta ay sheegayaan aanay dhaafaynin inay ku xadgudbayaan guudkeeda gurigeeda iyo gudaheeda guudkeeda way ku xadgudbayaan oo xijaabka sharciga ah bay ka dejinayaan qaawanaan baanay ugu yeedhayaan iyo inay ragga ku dhex milanto gurigeeda fasaadul usar bay la raadinayaan oo qoysasku inay fasaadaan oo ninkiiyo gabadha ay laba qof oo isgudub ordaya oo guriga ka wada baxaya oo ubadkooda fasaadinaya oo iyaguna waxa weeye aan mas'uuliyad iyo xil ay isugu beegan yihiin la garanaynin oo markasta boolis iyo meel daran isugu yeedhaya wax la mid ah bay ugu yeedhayaan oo ay leeyihiin rag iyo dumarku waa siman yihiin taasi oo sharciga islaamka shay xadguduba ku ah in sidaa loo idlaaqo sidaa in loo idlaaqo oo loo yiraahdo waa ay siman yihiin waa midda kale ee gudaheedii bay ku xadgudbayaan oo maantaba khitaan iyo markaa gudniin iyo inay yidhaahdaan waxa weeyaan waxyaabo marka intishaarul fawaaxish oo foolxumooyinka iyo fawaaxishtooda la faafinaya ah inay yidhaahdaan waxa weeye waa u fasaxan tahay oo say doontay yeeli kartaa iyagoo iyagu iminka inta ay had iyo jeer ku samaynayaan ama dhexdooda ka fuliyaan من الجراحات التجميلية مركا في هذه العضو حبن كان السجاء وحوي قلي ما قرحنادي بلايا انت اي كو سمينيان او غليهين اي سمينيان مثل ختان كايره تابشدا ee ka sunniga sharcigu baneeyay ee culimada muslimiintu dhammaan ku ijmaacday ayay waxa weeye rabaan inay kaga xadgudbaan oo diidaan
iyagoo ugu soo gabanaya marka kollay qayb badani arrinta noocaas ay ku ta'asurtay qaarkoodna shubuhaad iska shaydaani ah iyo marka wasaawisun ibliisiya iyo wasaawis marka ibliisku ku tuuray ayay si khaldan u adeegsadeen oo shubuhaad bay la yimaadeen shubuhaadka waxaynu uga jeednaa waa maa yashbahu thaabit walaysa bithaabit bay ahlulcilmigu yahaan shubhadu waa wax u eg wax sugan balse aan sugnayn marka shubahaadkay keeneen ee ay had iyo jeer soo aroorinayaan waxaa ka mid ah inay yidhaahdaan caalimkii weynaa ee moxamed ibnu ibraahim maalan ibnu mundir annaysaabuuri caalimkaa weyn ee ibnu mundir oo 241 hijriyada ilaa 240 hijriyada dhashay 300 iyo waxa weeye 18 hijriyadana dhintay ayaa waxay yidhaahdeen waxa uu yidhi khitaanka wax marka xadiis oo loo raaciyo sunno loo raaciyo wax ku sugani ma jiraan marka runtii arrinta noocaas waxaynu leenahay arrin sax ma qowlkaasina waa baatil kitaabkiisa al-ishraaf ala madaahib al-ulama halkan ay rabaan inuu wax ka soo raraan kagamu hadal khitaanka uu muran gelinayo khitaanka markuu soo sugay ee adiladiisa iyo masalada si fiican u marka hagaajiyay ayaa waxa uu ka jawaabay ahlul cilmigu waqtiyada ay tilmaameen say isugu khilaafsan yihiin iyo qolada tiri maalinka toddobaad la gudi maayo oo waxa weeye arrintaasi ficilka yahuud ay waafaqsanta iyo qolooyinka yidhi war maya sidaa ma aha ee waxa weeyaan arrintu haddii 7 casho lagu gudayo iyo haddii muddo kale lagu gudayo iyo haddii waxa weeye intaanu ilka dhacsan la gudayo muddadii la gudaaba dhib kuma jiro waliba intuu yar yahay fiican waxaanu waajibayaa markuu qaan gaaro rag iyo dumarba cidii waajibinaysay cidii sunna ka qabtayna dee ay markaa oranayaan marleyba waa sunne tan noocaasi isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi Abu Bakar ibn Mundir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wuxuu yidhi laysa fi bab al-khitan nahyun wala liwaqtihi خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من منع أن يختن السبي ل7 أيام حجة إمامكم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ختان كأئمة كلو كلام بديه كتبتي سنة لما أنتو كقهد لي بسيدي تهيب أغصوه بس waxa uu ka jawaabayay waxay muddada suuleeyahay sunne loo raaco waqtiga laga dhigayo iyo waqti loo celiyo la xilliga lama dhaafin karo waxa weeyaan meesha ma taalo oo 7 cashe la nahayanayana wax joo loo hayaa ma jirto laakiin guditaanka waxba looma hayo wax allaliya wax ka jira ma jiraan waa beengeesale weey imaamkuna ma oran kitaabkiisa iqnaacana hadalku intan isagoo ka kooban oo leeyahay qolada 7 casho diidaysa daliil uma haysatiyo xujo ay cuskato si kooban buu u yiri marka kamu hadal dafiraad oo dafiray guditaanka bas waqtigu ka hadlay kitaabkiisa ishraafkana waa laga eegi wax allali wax ka jiraana ma jiraan marka waxa leenahay shubhadaasi ka bogsada ogaadana ibnu mundir ahlul cilmi wuu la siman meelu kaga baydhayna ma jirto hadduu xitaa khilaaf ilaha qowlkiisu shaad buu noqon lahaa way culimada kale muslimiinta oo dhan buu khilaaf ilaa laakiin ma khilaafin waxyaabaha kale ee masalan ay shubhada ka dhiganayeen waxa ka mid ah inay tilmaameen in waxa weeye marka uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam idha altaqa alkhitanan marka labada gudnin kulmaan
inay yidhaahdeen waa min baabi tagliib taa lafteeda waxaynu leenahay horta marka ugu horeysa min baabi tagliib oo ay uga jeedaan labada waxa weeye gudniinay la sheegayaa meesha hal meelun baa gudan waxaanu leenahay horta waa marka koobaade min baabi tagliib in la yahda waa calaa khilaaf اlasli asalkii waa si khilaafsan asalku marka hore waxa weeye musanaha sidiisa in loo daayo oo labada shay uu tusinayo sidiisu u tusinaya la yaado haddiiba si aynu sallimno ahlulcilmiga qolada tidhi waa min baabi tagliib maxay uga jeedaan ma khitaankay diidan yihiin abadan ka soo heli maysid ka kugu yahda waa min baabi tagliib inuu khitaanka diidan yahay haddaad ka keentana waxaad sheegaysaa waa run laakiin taa baabu tagliibka waxay uga jeedaan ahlulcilmigu laba dariiq mar waxay u isticmaalaan inay leeyihiin labada shay ma jiraane miduun baa jira marna inay leeyihiin labada shay xukumkii ay wada lahaayeen ayaa mid lafdigiisa la rajaxay oo xukumka labaduba waa leeyihiin laakiin lafdiga mid ahaan baa la rajaxay waana ka maanta ay u jeedaan oo min baabi tagliib waxay uga jeedaan waa qolada tidhi khitaanka asal ahaan waxa leh maalan lafdigaa waxa loo isticmaalaa xagga ragga ee lafdi sidiisa isaga mushtaraga maaha dumarkuna asal waxay u leeyihiin khifaadka marka waxay leeyihiin halkii laga odhan lahaa ida altaqa alkhitaan wa khifaadu lmar'a oo khitaanu rajul wa khifaadu lmar'a ayaa waxaa la cabiray lafdigii khitaankaa la qallibay oo labada khitaan oo halkii ragga ayaa la xoog badnaysiyey iyagoo labadii khitaan jiraan saasay uga jeedaan waanay markay kuusii fasiraanna way kuu sheegayaan ee midku odhanaya waxaan uga jeedaa laba khitaan ma jiraan yacni arrintu sidaa ma aha arrintu sidaa ma aha mid kastabana haddaan wakhtigu inagu cidhiidhayn hadda waa soo rari lahayn qolada sidaa tidhi min baabi tagliibka tidhi waa midda kale waxaynu tilmaamaynaa axkaamta asalku rag iyo dumarku waynay ka siman yihiin annisaa waa shaqaa'iq rijaal axkaamta waa kuwa ragga kula walaala wixii daliil kala saara mooyaane asalku waynay siman yihiin ninka yidhaahda masaladani waxay ku gaar tahay ragga daliil baa laga rabaa waayo ilaa 82 mas'alo ama 83 mas'alo ahlulcilmigu tilmaamaan in rag iyo dumarku ku kala duwan yihiin mooyaane asalka axkaamta waa inay ka siman yihiin wax daliil kala saara mooyaane marka taa lafteeda waxa weeyaan ku gargaari mayso mid quraa la sheegaya waa midda kale haddaad riwaayadan musannaha sidaa tidhaahid riwaayaadka si gaara u sheegaya idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana ee labada khitaan sheegaya markuu ka gudbo iyo adilada la midka maxaad ka odhanaysaa yaa se fahankaagaa qaatay ee yidhi laba khitaan ma jiraan haddaabay xitaa xadiiskan tagliib ka fahmaan adilada kale maxay ka yidhaahdeen iyo riwaayaadka kale xadiiska yani qodob kuu gargaaraya ma axad keenso culimada muslimiinta ah oo qaba khitaanka dumarka iyo gudniinka dumarku ma jiro abadan ma soo helaysid adaa ku daali cimrigaagaa ku dhammaan qodobka kale ay shubhada ka dhigayaan waxa weeye in la yidhaahdo oo waa iska sunne sunnadana waa la iskaga tegi karaa maxaa laga culaysinaya walaal halkaa lafteedaan ku saxo shubhadaasi waa shubha aad u liidata wey horta culimada muslimiintu sunno kama wada qabaan madhabka shaaficiyada ee beledkan laga haystaa waxa uu masaladan kaga tegay ragga iyo dumarkaba inay waajib tahay in la gudo qowlkiisuna ilaa xad aad buu u xoog badan yahay qowl si yar lagu daciifin karana maaha abadan a'immada xoojisay ee waxa weeyaan aad ugu gargaartayna waxaa ka mid ah imaamu shawkaani isagoo kitaabkiisa muntaqaha markii hore ku soo rajaxay waxa weeye inta la hubaa inay dee sunno tahay waajibkiina khilaaf galay bal inta la hubee mutayaqanka ah lagu joogo kitaabkiisa saylul jaraarka qowlkiisa uu kaga laabtay waxaana uu yidhi markii hore halkaas sidaasaan soo rajaxay laakiin sawaabku waa sida halkan ku sugan buu yidhi oo ah rag iyo dumarkaba waajib inuu ku yahay a'immada casrigan ee waxa weeyaan masalada sida qiimaha badan u rajaxay waxa ka mid ah qowlka wujuubka
دكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي كتاب كيسا مثلا أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها يسوون وحو الرجح يقولك واجبك marka horta marka ugu horeysa ogow madhabka shaafiiciyada بعد الحنابلة iyo بعد المالكية iyo بعد العلماء المحققين waxay ku tageen labaduba inay waajib yihiin qofka waajibka aaminsan sidaad u oran karaysaa ee rabbi uga diin dhiganaya waa arrin iska fudud بكل سهولة saad u oran karaysaa waa mid kale qowlka sunnada markaynu u soo baydhno walaal miyaanad ogeyn oo miyaanay ku cadayn sunnada nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka yiri rag'atu al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha wala rag'adood sunnah labada rag'adood ee salaada subax ka horeeya waxa weeye ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa saaranba sunnadu kula hawl yara la tahqirana min al-ma'ruf shay'an wanaaga wax kamida in marka la hoos loo dhigo oo la yasallama ogola waa mid kale ogow sunnada markaad ka tagayso shardi waxa ah ahlul cilmi waxay yiraahdaan inaanay istighfaafayn inaad fudaydsan waa inaanad fudaydsan adoole maxaa ka macnaa islaamka cid ogol ma jirto in laga tagayo shay diinta kamid ah adoo qirsan وين دوغاتا inaad khiyaar yeelan karto aad ka tagi karto adoo qadarinayo qiimeynaya laakiin ma haynaad xaqirto waa mid kale shaygu markuu sunno yahay laga tagayo waa fi xaq al-ahad waa qofka gaar noqodkiisa marka loo eego ma aha wax umada loogu yeeri karo intaan halkaas soo taago ma oran karo aradeero labada ragcadood ee sunna iska daayaan idinku yeeraya abadan waa munkar cadiima way saad u oran kartaa sunnana qofku hadduu doonaha ka aaminsanaadee waa ka taga bal dambi loo xisaabin karaa oo looga dhigi karaa jariima miyaanay ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu xalaaleeyey ee jireeyey oo la xarimayo taxriimkana allah iskale subxaanahu wa tacaala iyo xalaalaynta walaal arrin fudud ma aha taasina waxaynu leenahay waa shubho shaytaani ah in la fudaydsado la yada waa sunne maxaa ka macnaa arrintaasina waa shubhada la soo tuurayay kamid bay ahayd مثلا shubhaadka la soo tuurayay waxa kamid ahaa in la yiraahdo ibn abd al-bar waxa uu yiri waxa lagu ijmaacay khitaanka ragga taa lafteedu waa kadib waa been cadwi kitaabkiisa tamhiidka iyo istidkaarka markuu kaga hadlayayba jawaab ay haydu qolo siinay ee ijmaac buu sideeda masalada rag iyo dumar ba ugu soo naqliyay waxay ahayd xadiiska abi maliix jawaab uu kaga jawaabayay xujaaj ibn ardaatna uu ku jiray iyo qaabka uu uga jawaabayay bay ahayd oo uu lahaa qaabkan sax ma aha ragga ijmaaca qaabka marka loogu ijmaacay guditaankooda waa sidaynu soo sifaynay ee qaabkan uu imanka halkan loogu dhigaya ma masalu ka jawaabay xad caam uga dhigaysa ee hadalka u kala jaraysa mise ibn abd al-bar baan ijmaac ka qabin rag iyo dumarba in la gudayo oo ay qaybna ahlul cilmiga ku tageen waa waajib dumarku in la gudaa qaybna waa sunna ay ku tageen xitaa ibaaxada mustawadarafaynka cid ku tagto naskaraysa ma jirto cibaaraadka qaarkood oo eg oo mesela ibn hazmi oo kale waxay ku ijmaaceen nikaaxa dumar marka muxuu gudniinka dumarku inuu mashruuc yahay ibaaxadiisa ibaaxada ugama jeedo tii mustawadarafaynka ah ahlul cilmi badanna waa ka jawaabeen waana naqdiyeen marka walaal waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado oo masalada ayaan lagu xadgudbin cidda ka tagi karaysa kow aynu ogol lahay inuu ka tagaa hortu marka koobaad waa inuu yahay qof masalan dee wax laga gooyaba aan lahayn oo isgudnaan ku dhashay rag iyo dumar kuu yahayba gudniin saari mayno oo waxba lagama rabo ka noocaasiya qofka aan xamilayn ee naftiisa ay xadgudub ku tahay ee ay dhibayso acdaar iyo cudur daara jira daraadeed gudniin ugu yeeri mayno qofka مثلا dhibaato kale ka baqaya oo dhib kale ku soo gaarayo naftiisa iyo maalkiisa iyo diintiisa iyo ehelkiisa
isagana ku qasbi mayno oo ma lihin ha iskudo ma lihin qofka i'tiqaad ahaan isagu sunno ka aaminsan ee isagaan xaqiraynin oo sunnada nebiga sallallahu alayhi wasallam aan hoos u dhigayn yidhaahda naftayda anaa loo iska dhaafaya mana ceebaynayo shayga isaga ah laakiin anigu isku fulin maayo ka noocaasiyana uma diidanin hadduu sunno ka aaminsan yahay maaha hawadiisa iyo isagoo waajib ka aaminsan inuu ka tegi kara maaha hadduu rabbi uga diin dhiganayo oo isagii aqoon leeyahay ama culimada uu weydiiyey u fatwoodeen waa sunna oo dhib malo waad ka tegi kartaa ka noocaasiyana ma haysano inanta taada istaaban maaya ma haysano laakiin waxaanu haysanaa cidda shay ilaahay jideeyey le waxa weeye waa jariima iyo xadgudub shubhada kale odhanaysa shay mubaax ah miyaanu xaakimku taqyiidaad ku samayn karin waxaanu leenahay walaal mubaax maaha way kaa xun tahay cidda shubhada waxa weeyaan soo rartay casrigana waa ognahay ee waxaa keenay waxba si hadda magacaabi mayno laakiin waxaanu leenahay antum a'lamu bi umuri dunyaakum markii nabigu sallallahu alayhi wasallam umura dunyadiina idika iiga marka ogaal badan arintu tiimaahay tani waa diin xaakimkuna shayga ahlul cilmigu siday ka cadeeyaan baa waajib ku ah inuu raaco isagu waxba ma jidayn karo sharciga ka hor imanaya sida culimadu diinta ka sheegtaa baa waajib ku ah fasalu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun maxaa loo leeyahay culimadu wax weydiiya haddaan la raacayn haddaa isqabataanna kitaabka iyo sunnada isula noqda loo leeyahay waxaynu leenahay arrintaasi arrin meesha taalla ma aha arrin adduunyana ma aha oo xaakimku wax ka qaydi kara ma aha arrin waxa weeye aan diinta meel ku lahayna maaha waa arrin diinta asal ku laho meel iska yaalla cad oo ijmaaci ummadda ah cidda khilaaftaana ay noqonayso cid ijmaaci ummadda khilaaftay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يعني وعيد كاسي جليسا الا تلماميو جدك مؤمنين تا جدان هين عيد الراعده النار لوغو غوديي الهي ka cabsadeen dadka waxa ku meeraysanaya waxa way hana ogaadeen qasdiga xunay leeyihiin u hirgeli maayo ummadana waa ummad muslim oo diinteeda jecel ذلنا إني كدن بينيان والنبي صلى الله عليه وسلم وحط المامي وجعل ذلة والصغار على من خالف أمري وحد ذلي يهوصين لياري عند أمر كيغا خلافته عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر كيسا خلافة يسا وحوية هلس بيكو شران إلهي سبحانه وتعالى لما أنتم بقى نصون نغنو أي نحقا يسكو كالميسانو aan iska dayno diinta inagoo aan aqoon u lahayn inaynu ku dhiiranayno inaynu wax ka sheegno waayo shirkiga iyo gaalnimada ayaa lagu lamaaneeyay wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun in ilaahay wax ka sheegtaan aydan aqoon u lahayn waxa lagu lamaaneeyay markii la yiri wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun shirkiga lagu lamaaneeyay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa siyaariyaan loogu dhiiran qofku wuxuu aqoon u leeyahay ka hadlo wixii kalena cidda uu marka cilmi iyo aqoon bidayo ha u daayo ilaahayna dhamaanteen ba xaqahayna waafajiyo wa aakhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد